أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أنت وإسنين شنت بش الشعبان كن أفر بقول لبي أفرتنك هجرية تضبي طبعا ماجو لبا كن كوي لباتنك ميلادية وحن إريا كشيء هيا قبيلك شيخال ليرادو qabiilkaasi wuxuu ku abtirsadaa abubakar asidiiq oo uu dhashiisa yahay. ninka sheekhaal dhalay waxaa la yidhahdaa fiqi cumar. fiqi cumar abtirsigiisu waxaa weeye alfaqiih cumar bin shamsudiin bin faqiih bin muxamed bin yuunus bin faqiih bin yuusuf bin faqiih muxamed bin faqiih axmed bin faqiih taym bin faqiih ibraahim bin faqiih ciisa bin bakr بن فقيه عمر بن يعقوب بن فقيه يحيى بن فقيه عيسى بن فقيه مرة بن فقيه زكريا بن تيم ابن جمال الدين بن محمد بن عبد الله أولو يقانو أبي عتيق بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وحا أبو بكر أمان يفان وغفلا isaga iyo ubadkiisaba inuu azubayr ibnu bakaar oo ku abtirsada azubayr bin alcawaam oo noolaa qarniga labaad ee hijrada uu yidhi waxaa ii warramay yaxya bin miskiin oo ka wariyey cabdullaahi bin xasan oo ka wariyey aabbihiis oo ah cali bin abi taalib oo yidhi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam wuxuu yidhi إن أبو بكر منا أهل البيت. معنهيسو يهي أبو بكر وحاسوغن إنو أنك نجمد يهي أو أهل البيت كمد يهي. البلاذري وكدم بيي وحو كتاب كيس أنساب الأشراف كويري ريرك أبو بكر وحلوية رجري ولو يقيني آل الرسول. هدو وركاسو سيداس يهي شيخالنا مركا وعرورتيسا عرورتودا وسيداس أيغونا أهل البيتك وقمديهين حدان لهيلين نسك السارية والحمد لله رب العالمين. شريف يوسف الكونين oo xasani ah wuxuu hal sano fadhiyey magaalada zaylac oo markaas dowlad ahayd si uu diinta u fidiyo oo looga qaato markaasaa loo imaan waayey markaasuu khalwo galay oo lagu yidhi nebi maxamed sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam waxaa diinta la fidiyey oo u gargaaray abubakar sidiiq ee soo wado faraciisa si ay diinta kuula fidiyaan. markaasuu wuxuu yimid xudayda oo arliga yaman ah oo magaalada baytulfaqiih oo 40 kilomitr xudayda u jirta xagga tacis ka soo watay faqih cumar oo majid kutubada ka akhrin jiray oo diinta la fidiyey. markaasuu wuxuu ku daray gabadhiisa oo ay u dhashay axmed loo boge cumar aw qutub abiib oo ah abubakar cali iyo malaha kuwo kaleba. markaasuu axmed ku yidhi xagga beri aad oo dadka diinta bar waana waddanka maanta soomaaliya la yidhaahdo waana axmed loo boge. cumar iyo abiib iyo calina wuxuu ku yidhi wuxuu u diray xagga galbeed oo ah arligay soomaalida galbeed degaan. ilaa 1920 waa qiyaas hal qarni 100 sano ka hor ama ka yarba shiikhaasha waxaa la oran jiray magacoodu wuxuu ahaa mashaayikh oo ah jamaca sheekh. qofka yiraahda abubakar sidiiq
saxaabi ma ahayn diinta islaamka waa ka baxaya maxaa jira wuxuu beeninayaa aayadda 40aad ee suuratu tawba oo ilaahay noogu sheegay inuu saaxiibkiisa hogga kula jiray ahaa videogan waxaad ka arkaysaa qayb ka mida maka almukarama masjid alxaraami minaaradihiisa jabalu abu qubays oo uu qasriga boqorku dul saaran yahay iyo xoogaa ka mid ah shicbu bani haashim sidoo kale waxaad ka arkaysaa qubuuraha almucallaa ee maka almukarama qaybta derbiga dheer ku wareegsan yahay waa qubuuraha ahlulbeytka waxaana markii ugu horreeyey dhisay oo lagu duugay qusay bin kilaab oo ahaa awoowaha afaraad ee nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam halkaas waxaa ku duugan ahlulbeyt aada u fara badan ay ugu fadli badan yihiin uguna koreeyaan labada wiil ee nebi maxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam alqaasim iyo cabdullaahi iyo hooyadood hooyo khadiija calayhi assalaamu bintu khuwaylid alasadiya haweenta nebi maxamed sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam waxaa kaloo halkaas ku duugan abu taalib waxaa ku duugan cabdulmutalib waxaa ku duugan cabdumanaaf dad badan oo ahlulbeytkaa ku duugan waxaad u jeedaa qabriga hooyo khadiija calayhi assalaamu iyo labada qabri oo labadeeda wiil oo qabrigeeda ku dhex yaalla oo dhinaca geeska midigta ah xabaalaha uga yaalla alghaazi wuxuu kitaabkiisa ifaadat alanaami bidikri akhbaari balad illaahi alxaraami ku yidhi qabriga cabdiraxmaan bin abibakar asidiiq waa la yaqaanaa oo lagu yaqaanaa almucallaa wuxuuna ku yaallaa dhanka midig ee qofka u socda qabriga asayida khadiija calayha assalaam oo dariiq yar ayaa u dhexeeya waa ama qabriga 720aad ama 820 ay ku dhigan tahay markay ku dhignaan jireen nambaradu oo wuxuu ka soo horjeedaa qabriga hooyo khadiija calayhi salaamu markaad iridda weyn oo cagaaran ka soo gashid waa qabriga ugu horreeya midigta kaa qabanaya waxaa kaloo halkan ku duugan asmaa bintu abibakar sidiiq daata nitaaqayni gabadha abubakar sidiiq radia allahu tacaala canha wa ardaaha iyo jirka wiilkeeda amiiru lmu'miniin cabdullaahi bin azubayr bin alcawaam oo madaxiisa waxaa gooyey alxajaaj bin yuusuf athaqafi oo u diray boqorka bani umaya ee dimashq fadhiyey waxaa kaloo halkan ku jira abu quxaafa oo ah aabbaha dhalay abubakar asidiiq allah raalli ka wada noqdee marka abubakar asidiiq aabbihiis iyo wiilkiisa cabdiraxmaan iyo gabadhiisa asmaa waxay la duugan yihiin ahlulbeytka taasi waxay ku tusaysaa inay ayaguna ahlulbeytka ka mid yihiin ma aha xagga dhiigga ma aha oo nasabkoodu waa ka duwan yahay laakiin waa tashriif oo nabiga shareecada ka dhigay inay ka mid yihiin ahlulbeytka nasabka abuubakarna wuxuu ka galaa nasabka nabiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam awoowaha lixaad ee nebiga sala allahu calayh wasalam oo ah mura wuxuu dhalay kilaab oo ah awoowaha shanaad ee nebiga calayh salatu wasalaam iyo
taym oo ah awoowaha shanaad ee abubakar sidiiq marka nasabka abubakar wuxuu ka galaa ka nebiga calayhi salaatu wasalaam mura bin kacab kacabna waxaa nasabka nebiga ka soo gala sal alla alay wasalam nasabka amiir almu'miniin abu xafs cumar bin alkhataab allah raalli ka wada ahaadee markaan intaasaan uga baxayaa وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون